cashirkan waa cashirkeeni noo socdo oo ahaa sidii scriptka loo qoro. cashirkan waa cashirkii 25aad weeyaan. waa scriptka labaad aan qorayno weeyaan. waa beginning script wax la yiraahdo aan qoraynaa. kabacdi waxaan garanaynaa wax loo yiraahdo ama wax la yiraahdo execute running markaan sameyno scriptka hadduu shaqeynayo uusan defect noqon ama uusan fail garoobin waxaa loo bedelayaa wax la yiraahdo batching wax la yiraahdo oo loo isticmaalo codeka scriptka marka aad qortid hadduu scriptkaada saxsan yahay. marka ugu horeyso ku dheeraamaya halkaas ayaan tegayaa. markaan tago scriptka labaad aan qorayo oo intaanu ku saabsan yahay tan koowaad waxaan ku taabgareynayaa get child item. tan labaadna waxaan leeyahay start/sleeping 2 second aan dhahayaa. tan saddexaad waxaan leeyahay cls aan dhahayaa oo kalingareynayso scriptka cusub ama commandka powershellka aan rabo cusub inaan sameeyo. tan afraad waxaan leeyahay start/sleep 1 second aan dhahayaa. qaybta shanaad aan qorayo waxa weeye get process oo aan kasoo hadlay cashiradeenii hore ahaa koodadka hore aan isticmaalay get process get help. halkaas ayaan hoos u dhiganayaa. waxaan la soo baxayaa window powershell ISE aan la soo baxayaa. halkan hoose waxaan ku samayn karaa wax la yiraahdo corin ama batching wax la yiraahdo. halkan hoose arkayno halkaan qorana scriptka oo haddaan rabo new script markaan qorana halkaasaan ku qoranayaa. kabacdi labadan markaan scriptka dhameeyo halkaan optionkan green waxaan rangareynayaa run the script. halkaa falaarta arkaysaan haddii aan rabo inaan code ku sameeyo ama aan batching aan sameeyo halkaasaan ku qoranayaa. haddii aan new script dhahayna halkaasaan leeyahay. haddaba marka ugu horeyso halkaas ayaan waxaan ku qoranayaa scriptka labaad aan qorayno oo cashirkeena ahaa cashirkii 25aad oo la isticmaalaa window powershell ISE. halkaas ayaan leeyahay child item aan dhahayaa. saddexda xaraf ugu horeyso markaan garaaco ama labada xaraf aan saa soo saaraya intan aan dhahayaa. kabacdi waxaan leeyahay star aan leeyahay slash aan dhahayaa sleep aan leeyahay. sleep markaan dhaho saan u soo hadlago 2 second ayaan dhahayaa. tan saddexaad waxaan leeyahay cls aan leeyahay si ay u kalingareysanto. tan afraadna waxaan ku qorayaa star ayaan leeyahay slash sleep ayaan dhahayaa sidoo kale. marka afraad sleep markaan dhaho 1 second ayaan dhahayaa. tan shanaad waxaan leeyahay get process aan dhahayaa get/process markaan dhaho xarafka ugu horeeya garaaco waa arkaysaan saddexda ugu horeyso markaan garaaco waa tab completion waxa la isticmaalayaa. enter ayaan taabanayaa. halkaas waa arkaysaan labada window aan ka hadlay waxaa ku qoran run script aan ku qoran run the script. okay aan leeyahay markaan dhaho run script markaan dhaho arkaysaan scriptka uu rangareynayaa ugu istaagay. kabacdi waa save gareynayaa. halkaa haddaan rabo inaan ku save gareeyo fileka ayaan tegayaa. halkaa ayaan tegayaa fileka markaan tago save as aan leeyahay. waan save gareeyey already. second script aan qoray aan ku save gareeyey. marka mar labaad inaan save gareeyo ma rabo. filekan ama scriptkan labaad aan qoray hore baan u save gareeyey. cashirkeena dambe marka wuxuu noqonayaa waxa la yiraahdo run execute aan sameynaynaa. oo run execute markaan sameyno haddii uu scriptkan uu saxsan yahay ama uu saxsanaado waxaan u bedelaynaa wax la yiraahdo batching wax laan u bedelaynaa. haddaba haddaad galaaskan ku cusub tahay ama scriptka aad weligaa qoran scriptkan waa script basic stuff weeyaan. qof walba oo loogu talagalay studentiga cusub hadduu rabo inuu script qoro aan idin tusaynaa. haddii aad galaaskan ku cusub tahay ama haddaa hore u joogtid like taabo comment ka bixi subscribe-kana noo taabo commentigana ka bixi. commentigaad waa noo muhiim weeyaan. cashirkeena dambena waxaan ka hadli doonaa how to run the execute for the scriptka hadda aan qornay.